بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتك كحرن كنال كوانا قويسك كسو دواذا وانا دحلقال واه لاسمها قويسك. موضوعنا ما انت وحو يهي برنامجكي لرجلين هويو. موضوع عاس وحانو قلت رجلني هويوينك كوريغا جوغا هويوينك فرصة هايا هويوينك رابيني وحبرتان مستقبل كودنا كفكران caruurtoodana waxbaraan. muuqaalkan waxaan sameeyay bilowgii sanadkan ee bishii January. waxaan ugu talagalay inaan sameeyo qorshooyin ilaa iyo 4 ah. qorshooyinkaas aan sameeyay waxay ahaayeen 4 gool ama 4 hadaf. hadafyadaas waxaan ugu talagalay sanadka gudihiisa inaan xaqiijiyo hadduu Allah subxaanahu wa ta'aala ka raali noqdo. waxaan aad iyo aad u jeclahay inaan wax sameeyo, inaan qorshe sameeyo. hooyo walbana waxaan ku dhiirigeliyaa inay tilaabo hore u qaado, ka fikirto mustaqbalkeeda, ka fikirto aayaheeda dambe, ka fikirto caruurteeda mustaqbalkeeda. marka hore sanadka 12 bilood waxaad u qaybinaysaa 4 qayb. 3 bil qorshe ayaad ku samaysan kartaa oo aad ku xaqiijin kartaa. qorshahaada waxaad ka dhigi kartaa goal 1, goal 2, goal 3, goal 4. macnaha hadaf koowaad, hadaf labaad iyo hadaf saddexaad. hadafyada markaa saa u qaybisid hadafyada waaweyn waxaad sameynay hadaf yar oo aadani ku gaaraysid hadafyada waaweyn. hadaf markaad sameynaysid waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxyaabaha naftaada ku jiro oo ka guuxaya wax ay yihiin. tusaale waxaan rabaa inaan aniga barto quraanka intee rabaa inaan ku barto. bishii imisaan baran karaa, maalintii isbuucii imisaan baran karaa, maalintii intee aayada baran karaa. ina isweydiisid. sidaas darteeda hadafkaada waxaa ku bees kareynaa awoodaada. ma ahan inaad samaystid hadaf ka weyn aadan gaari karin. waqti xadidanna waa inaad u sameysaa oo achievable inuu yahay. time u gaar ahaan inaad sameysid oo waxaan wax iska soconaya inuu noqonin. sidaas darteeda goolka waa muhiim noloshaada inaad dhahdid hadaf ayaan leeyahay. kadibna qorshaan la imaanaa, ugu dambeynna ficilka ayaa imaanaya. ficil markaad sameynaysid waxaad u baahan tahay ka hor intaadan ficil sameynin meeshii aad wax ku qaban lahayd inaad diyaarsatid. meel saaxad ah, meel goob waxbarasho, meel u gaara inaad qorshahaada ku fulisid. sidaas darteeda hooyo walba waxaan ku dhiirigeliyaa in ay noqoto hooyo fikirayso, caqligeeda ka shaqaysiinayso, hooyo u diyaar ah noloshan iyo waxa soo wajahaya had iyo jeer. noloshu adduunku waa waxbarasho. haddaadan aqoon lahayn, aqoon la'aan maxaa la dhahaa? waa iftiin la'aan. aqoontu waa iftiin. alcilmu nuurun waljahlu dulaam. cilmigu waa nuur, jahliguna waa mugdi. sidaas darteed waxaa loo baahan yahay hadaa hooyo waxbaratay tahay oo aqoon leh oo ka caajistay ama jaamacad aadan ku noqonin, jaamacad aad ka fariisatay ama jaamacad dhameysatay oo aadan hore u wadanin ama iskuul aad dhiganaysid. noloshaada marka hore meel fariiso, Allah subhanahu wa ta'ala duca weydiiso. subaxdaada ku biloobo adkaartaada sabax, ku biloobo quraankaada. adkaarta sabaxa sharo dhana ilaahay laga maangala soma ilaah ka badbaadina. ilaahay sharta ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kamida ka maangalaysa sharo dhan caajiska iyo culeyska. caajiska ilaahay inuu ka qaado waxa sabab ah inaad duceysatid. ducada ilaahay subhanahu wa ta'ala
wuu ajiibaa. So maalintaada maxaa qurxin kara? waxaa qurxin kara waxay tahay inaad ku bilowdid adkaar, ducooyin iyo qur'aankana waxaa waa qofkii ka haajira qalbigiisa qalalo. qur'aanka hadaad maalin ka haajirtid bilow ka haajira, hadaa bil ka haajirtid oo ka fogaatid sanad wax ka fogaaday kala noqonaysa. mar alla marka qur'aanka ku bilowdid maalintaada maalin iftiinaysa noqonee. ilaahay hadafyadaada wuu rumeynaa insha Allah. qof firfircoon noqonee, qof ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xiran markaa tahay. amuuraha dhan taysiir way isfurfurayaan, ayaga isfurfuraay. marka meel fariisato oo hooyo tahay waxaad ku fikirsan tahay macnaha maxaa waa quraankii waa akhrisay, waa soo toostay, waqtigii ayaa haysataa, gacmaha ma dul saarane la waxa ku fikiray yani maxaa qaban lahaa, maxaa ii xiga inaad ku fikirtid. wataas maxaa ii xiga. caruurta ayadana waxaa rabaa tusaale waxbaa artaa inaad wax akhrisatid meel soo fariisatay. caruurta ilaahay uu ku siiyay subxaanahu wa ta'aala waa inagu يعني wax shaqo kale ma hayaanba ilaa adig ugu mashquulayaan. ayaguna inaa shaqo u sameysaa, inaa meel wax ku akhristaa u sameysaa, inaad ku dhiirigelisaa waxbarashada, inaa adig marka hore wax bartid, caruurtan wax bartid guriga haday joogaan. ilmaha yarka kuwa kale iskuul iyo madrasa loo dira falilahi alxamdu. kuwa xataa shaqo kaaga baahan yihiin wixii la soo diray inaad yani aad leeligii iyo exercise-kii aad kala shaqaysid, homework-kii la soo siiyay, shaqada gurigii ku soo shaqeey la yiri oo casharada la soo siiyay inaad kala shaqayso waa muhiim. mar walba hooyadu waa in ayada sideed wax u barato ilmahan wax u bartaa. ilmo yar haday joogan guriga oo shaqo helin adeeg kugu mashquulayaan. mar alla markay kugu mashquulaan waxa meesha ka baxaayo waxaad qaban lahayd oo ah inaad noqotay qof maanta oo dhan su'aal ka jawaabayo, qof maanta oo dhan shaqo iyo daal iyo tacab fara badan haayo, qof maanta oo dhan lagu soo noqonayo ileen awlaad ilaahay noo barakeeyo. mar walba hadalka ma daalaya ma hadalay maanta oo dhan kula hadlaa energy hayaan. marka energygaas meel ayaga kaga faa'iidayaan adna aad kaga faa'iidi karto oo sameyso. mar alla waxa loo baahan yahay hooyadu waa in ay u diyaarisaa meel ay wax ku akhristaan, wax ka faa'iideystaan, waqtigooda intay yar yihiin jadwalka waxbarashada ay la qabsadaan. u samee meel gaar ah, ku barbaari waxa bartaan, adiga garabsi usoo iibi qalab alla qalabkii aad haysid heli kartid oo wax lagu barto. dadka awlaada, dadka murabbiyiinta, macallimiinta, dadka xanaanada caruurta jooga, dadka dhan la tasho, weydii ilmaha yarka kanaaladan laga soo daayo caruurta iyo horumarintooda waxbarashadooda daawo baxdi yani baxdi samee oo research wax baarid fara badan samee. marka waxaa noqonay hooyo soo jeeda, hooyo baraarugsan, hooyo nolosheeda maareynaysa, hooyo awlaadeeda baaranaysa, hooyo waqtiga aan ka lumin. soo waa ka adi haday kugu mashquushay oo mashquul fara badan aad dareentay ayadana mashquul meel ka fariisato jaanis waxa uu helay ina adigana wax baratid, ina adigana wax qorsheysatid. hadafka markaad ka sameysid meel aad ku qortid wuxuu u baahan yahay qorshe inaad la imaadid. tusaale aniga quraankaan aan rabaa inaan barto, hay goor ma baranaa, meeqa maalina aada, inta ka bilowba qorshe la yimaw, madrasadii aada, madrasada u fiican inta ku baran karaa maalmood. qorshahaas oo dhan markaad aad la imaadid ama ganacsi, tusaale ganacsi oo kala harta, ganacsigaas oo kale markaad bilaabaysid inta ka bilowba waa ku fikirtay maho hadafki waa ganacsiga. qorshihiina waa inaad sameysaa kadib wax ku dhiman oo ahayn Allah inaad tala saaratid oo ficil la imaadid, wax kale ma jiraan. caruurtana waa idin sheegaa, caruurta ka fikira guriga caruurta joogaan marnaha u ogolaanina inay Tom and Jerry iyo waxyaabaha lagu mashquulo kartoonka ee maanta oo dhan daawadaan, because maskaxdooda waxa soo dhan ka qaadayaan, maskaxda ka mashquulinayaan. filmadan oo kale sidee u hadlayaan wax badan aan aragnay. yani waxa meesha ka socdo ayagana si practical si caadi adigana kula imaanayaan. soo mar walbo waxaan dhahaa hooyooyinka baraaruga, hurdada ka kaca, hurdada maxaa ka toosa, hurdada ka toosa. mar walbo waxaan dhahaa meeshaan dunida wax yar oo kooban waay, ka faa'iideysto. الوقت كالذهب، الوقت كالصيف إذا لم تخدع يقدع. هذا وقتك أدي جرن أسيقا كجرايا، أسيقا
kaa dhamaanaya adigoo halkaadii unbaa joogaysaa. hooyadu baraarugaas oo sidaa u weyn inay ku baraarugsanaato in hooyada inta ilmaha yarka ah ee guriga joogaan ee ku barbaariso waxbarashada, ee ku barbaariso nadaafada, ee ku barbaariso wax u sheegka aadaabka, akhlaaqda, wax alla wixii door ahaa oo mas'uul ay ka ahayd inay doorkeeda ay ka qaadato. aabuhu wuu maqan yahay laakiin hooyada ayaa guriga joogta. sama waqtiga wax baranaysiin laba ilmihiina meel wada fariisi si wada jir ah waqtiga ugu faa'iideysta. ilmuhu ha ka faa'iideystaan, hooyaduna ha ka faa'iideysato. ilmuhu wax bartaan, hooyadu wax barato. muuqaalkan wuu dheeraaday 10 daqiiqo ka badnaaday insha Allah. muuqaalka xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.